madaxweynaha maamulka la baxay Puntland ayaa si cad u sheegay in diinta islaamka aanay dhameystirnayn xilli Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa inoogu sheegay in diintu ay tahay mid dhameystiran. Abdi Fitaah Maxamed Qaasim Filibiin. madaxweynaha maamulka la baxay Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa weerar afka ah ku qaaday diinta islaamka isagoona sheegay inaanay diinta islaamka ku dhameystirnayn waxyaabaha ay ku dhaqmaan bani aadamka. khudbadu ka jeediyay jaamacad ku taala Puntland ayuu hadalkan ka jeediyay waxaana la yaab lahaa in goobta ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah culimada maamulka la baxay Puntland la shaqaysa. waxa uu goobta ku xayeysiiyay dastuurka ay qaateen ee dimuqraadiyadda ku dhisan isagoona sheegay in dastuurkan uu wax walba dhameynayo hase ahaatee quraanka aanu wax walba ku dhameystirnayn. Soomaaliya dastuurku sameeyay anaga dastuurka markaa sameeyay xabsu lagu faa shariicada dastuur ayaa yiri shariicada baa wax walba ku qoray baabuurta sida loo kala celiyo iyo xabsiga maxkamadda sida qofka loo geeyo kuma loo qoro maanta gacanta kii ka waqti dadka gacanta meel wada goynaya qaar baa gacmaha loo deynaya qaar hadii la raayo ama xabsi ka xanuun badan baa la siiyay sharci dastuura oo waafaqsan shariicada islaamka oo samaysanay waynu guddoonsanay waynu ogeynay waynu qaadanay isagaa hadalka ka soo baxay Cabdiraxmaan Farole ayaa waxa uu meel ka dhac weyn ku yahay diinta islaamka maadaama tacaala ayada inagu soo maqan oo inoogu sheegay in diinta uu inoo dhameystiray. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. dastuurka uu Cabdiraxmaan Farole ka doortay Qur'aanka Kariimka ah isla markaana uu ku tilmaamay mid ay ku dhameystiran yihiin wax walba ayaa waxa si toos ah ugu xardhan qodobo gaalaysiin ah waxaana ka mid ah in qofka aanan lagu caburin karin ama aan lagu tikoori karin diinta uu aaminsan yahay iyadoo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu amar ku bixiyay in la dilo qofka bedelaha diintiisa. qodobada noocaas ah ee ku qoran dastuurka Puntland aad bay u badan yihiin waxaana maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayay xitaa xildhibaanada baarlamaanka uu ka mid yahay Cabdiqaadir Faarax Bootaan. bal aan eegno oo milicsano dastuurka Puntland wuxuu ka qabo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Puntland. waxaan kaliya xusaynaa xubinta koowaad ee xuquuqda shakhsiga qodobkeeda 12aad ee finaanta dadka fikrada koowaad iyo fikradeeda labaad waxa ay leedahay labadaas farood waxay leeyihiin dhammaan dadku waa u siman yahay sharciga hortiisa. fikrada labaad waxay leedahay qofna laguma takoori karo midabka iyo diinta iyo dhalashada iyo jinsiyadda hantida fikradda uu aaminsan yahay siyaasadda afka iyo ifirka. qodobka 14aad ee xorriyadda fikirka fikradiisa koowaad waxa uu leeyahay qof kasta xor buu u yahay fikradiisa waana soo bandhigi karaa faafreeb xorraciina ma jiro lagumana samayn karo. fikradda labaad ee xorriyadda fikirka waxa ay leedahay qofku waxa uu fikradiisa ku cabiri karaa qaab hadal saxaafadeed qoraal muuqaal suugaan iyo habab kale oo sharciga iyo anshaxa waafaqsan. qodobka 16aad ee xorriyadda dhaqdhaqaaqa fikradiisa koowaad waxa uu leeyahay qof kasta waxa uu u madax bannaan yahay inuu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu rabo iyo inuu dalka ka baxo kuna soo laabto goortii uu doono. saddexdaas qodob oo dastuurka Puntland oo sinaanta xorriyadda fikirka iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa falka lagula kacay ergadii ay soo dirsatay bulshada gobollada kale ka tirsan oo uu ka mid ahaa nabadooye Yaasiin Cabdisamed waxa lagula kacay marka la eego intuba way ka soo horjeedaan saddexdaas qodob oo dastuurka Puntland uu qorayo.
waana meelka dhac weyn oo dastuurka ay ku tahay waana meelka dhac weyn iyo magac xumo iyo falxad dhaaf ah oo ay ku kacday ciidamada amniga ay ku kaceen cid kasta ha martee xilwaankaasi Puntland ka tirsan warkii Filibiin ayuu ugu dambeeyay mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka jawaabay hadal ka soo baxay hoggaanka maamulka la baxay Puntland kaasi oo durayay diinta islaamka Cabdiwahaab Sheekh Aadan ayaa warkan faahfaahinay kadib markii ninka lagu magacaabo Farol uu sheegay in dimuqraadiyadda ay ogoshahay diinta isla markaana uu sheegay in dalal islaam ay qaateen ayaa haddana waxa jira hadallo kulul oo ka soo yeeraya culmaawdiinka Puntland ka soo jeeda Sheekh Ismaan Shire oo waraysi ku aadan arrimaha Puntland siiyay warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan ayaa arrinkan ka hadlay walaal hadalkaas waa hadal kufriya ilaahina wuxuu quraanka kariimka ku yiri waman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaa'ika humul kaafiruun إلهي سبحانه وتعالى وحوير إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه مركا وحوي أرنكاس وقال نمو وحوي ديمقراطية دي كتابك إلهينا وحوي كما قصيان إلهينا وقرآن كريم كاكوي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مركا نينكا كلمة باديدي قال لماذا هيد أول بهو كلك مجري وحتى قال لماذا لفتك دي واحد مقرنة سأمر بالاتفيانا بالناسود وولي ليو وحويا مركا وحوي اسمه قصيصود ديمقراطية وشيرينا وقال لمو وحويا وحو هذا الظهر نارك يسوق ballan qaadayna waa nin maaragtay afxaan oo ka baxaya marka waxa weeyaan arintaas iyada ah ee uu leeyahay ahzaab baa wadanka gelinaya waxa weeyaan waa wax uu maaragtay kursigiisa ku sii banaysanayo doonayo ummadii oo macnaha ismadii iyo cid waliba waxa weeyaan maanta xukunkiisii waa la nacay waxa weeye waqtigiisii waa dhamaaday wuxuu doonayaa inuu kursiga sii dheersado oo ummadda dulmigii iyo dhiigmiiraadnimadii iyo ashaaladdirnimadii ku sii xukumo ayuu rabaa marka dimuqraadiyadda uu sheegaya sharciga islaamkana waxa bayaad iska qusaya ma jira waa gaalnimo waa mabda gaalo wadato annagu islaam baan nahay ilaahay kitaabka quraanku noo soo dejiyay kitaabka quraanka iyo shariicada islaamka ayaana ilaahay raalli looga yahay ugu dambeyntii Sheekh Cusmaan oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kana soo jeeda Puntland ayaa waxa uu shacabka ku dhaqan Puntland ugu baaqay inay ka hortagaan waxyaabaha uu wada Faroole isla markaana ay si weyn uga soo horjeestaan waqti kororsiga uu doonayo Faroole walaal waxaan dirayaa odayaashaas waa jirta arrinta galkacay ka dhacday sida oo kale waxay ka dhacday meel walba garowe ka dhacday boosaas ka dhacday waxa weeyaan inay ummadda ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibtan maaragtay ninka ka ummadda ku hayo iyo maamulkiisa ashaaladinka ummadda ku hayaan inay ka dhigayaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo toobad keeno oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa loo noqdo oo kitaabka ilaahay la qabsado oo dulmiga iyo ximaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddii ummaddu ay meel uga soo wada jeesato oo ummaddu dulmiga ay ka hor timaado oo wanaagga isu kaalmaysato wanaagna lama helayo ilaa ilaahay diintiisa loo noqdo dhibaatada maaragtay lagama baxayo ilaa ilaahay loo noqdo loo toobad keeno marka maamul waxaan leeyahay war ka hada maamulka maaragtay ashaaradka ah ee ogtihiin inuu maaragtay gaalo wado yaadogtii inuu diinta ilaahay la dirirayo yaadogtiin inuu maaragtay dadka kala qeybiyo qaar laayay qaar xidhxidhay qaar ay ka baxsadeen maamulkiisii waxa weeyaan runtii waa siyaasad aad u xun oo divide and rule ah ayuu ummadda maaragtay ku hogaaminayaa waxa weeyaan marka waxaan leeyahay war ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena hadalka uu jeeday Sheekh Ismaan Shire oo kamid ah culimada Puntland ka soo jeeda ayaa waxa uu imaanaya xilli xaalado kacsan ay ka jirto Puntland kaasi oo looga soo horjeedo waqti kororsiga uu doonayo Faroole waxaana jira dad fara badan oo kamid ah dadka reer Puntland oo ka soo horjeeda inuu waqtiga kororsado Cabdiraxmaan Faroole hoggaanka Puntland